saddexdii wadan ee aan booqanay waa wadamada Sacuudiga magaalada Riyaad ee caasimaddahan tagnay halkaas waxaan uga qayb galnay shir weyn oo dalalka islaamka iyo dalalka kale ee carabta ah iyo dawladda Mareykanku ay ku kulmeen oo heer madaxeed ahaa heer madaxweyne iyo boqor halkaas ayaan uga qayb galnay shirkaas oo ahaa shir muhiim ah oo dalalka caalamka ee muslimku ay isugu yimaadeen madaxweynaha Mareykankuna uu joogay boqorka Sacuudiguna uu joogay labadoodu ay ka ahaayeen garwadeen boqorada iyo madaxweynayaasha islaamkuna ay joogeen waxaa looga wada hadlay arrimo badan oo islaamka khuseeya iyo caalamka maanta la joogo shirkaasna madaxweynuhu wuxuu helay oo fursad u helay inuu si gooni ah u arko waqtiyo kooban si aan rasmi ahayn uu arko madax badan oo adduunka ah oo isugu jira madaxweynayaal boqorro uu ka mid yahay boqorka Sacuudigu in uu la kulmo wasiirro arrimo dibadeed dad badan ay halka isku arkeen waxaan noogu xigtay markii shirkaasi dhamaaday wada hadal dawladda Sacuudiga aan la galnay wada hadalkaas oo miro dhalkiisu ahaa in dalka Sacuudigu uu naga kaalinayo mashaariic horumarineed oo ay ka mid yihiin airport la dhisayo oo cusub wadooyin dhowr ah oo dib loo dhisayo iyo in uu dhiso dib u dhis ku sameeyo dhismayaashii dawladda iyo xarumihii wasaaradaha isla markaasna waxay boqortooyada Sacuudigu ogolaatay in ay mashaariic inta ka badan oo xagga horumarinta ah ay samayso waxayna aan isla gaarnay in isla toddobaad gudihiis ama toddobaadka soo socda uu wafdi heer wasiir ah iyo guddi farsamo ay ka baxaan halkan oo ay tagaan dalka boqortooyada Sacuudiga oo halkaas mashaariic badan oo u badan xagga kaabayaasha dhaqaalaha iyo mashaariic horumarineed oo shaqooyin u abuuraya kumanyaal dhalinyaro Soomaaliyeed ah in qalinka lagu duugo oo halka lagu kala saxiixdo kadib waxaan tagnay magaalada Djibouti caasimadda jamhuuriyadda Djibouti halkaas oo aan wada hadal la galnay isla maalintii aan tagnayba madaxweynaha iyo xubno ka tirsan golihiisa wasiirada qaarna gooni aan soo aragnay madaxweynayaashuna ay toos soo arkeen oo labadooda wada fariisteen halkaasna waxaan ku gaarnay iskaashi in labada dal ay sameeyaan kadib markii looga mahad celiyay dawladda Djibouti dadaalka walaalnimo ee muddada dheer ku haysay dalka Soomaaliya iyo taakulada waxa lagu heshiiyay in labada dal iska kaashadaan xagga amniga badaha inay iska kaashadaan xagga tababarka ciidamada in labada dal ay sii wadaan iskaashigoodii isla markaasna si gooni waxa loogu xil saaray labada wasiir arrimo dibadeed inay goordhow is arkaan oo ay mashaariic hor le isla meel dhigaan kadibna waxaan ka qayb galnay furitaanka dekada Dooraale oo ah dekada afraad ee magaalada Djibouti loo sameeyay halkaas oo mashruuc weyn oo qiimo leh lagu hirgeliyay waxaa xusid mudan in dekadaas dhagax dhigeedii ay wada dhagax dhigeen madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti iyo ra'iisul wasaaraheennii hore Saacid Shirdoon maantana ay furitaankeedii wada jir u fureen madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti iyo madaxweynaha jamhuuriyaddeena federaalka ah ee madaxweyne Farmaajo intaas kadib waxaan u baxnay hal habeen kaliya markaan ku haynay Djibouti waxaan tagnay dalka Qatar magaalada Doha halkaas oo aan wada hadal ku galnay mas'uuliyiinta Doha oo amiirka Qatar dalka Qatar uu madaxweynaha iyo wafdigiisa ku qaabilay wada hadal aan yeelanay oo boqorka la yeelanay iyo wasiirada kala duwan ee dawladana waxa la isku afgartay in dawladda Qatar ay kabto miisaaniyadda dawladda federaalka Soomaaliya iyo in ay naga caawiso dhinacyada waxbarashada iyo caafimaadka iyo mashaariic kale oo dhowr ah marka safarkan markii la isu geeyo Sacuudiga haddaan ku kabo waxa kamid ahaa heshiiska dhinaca amniga ayaa kamid ahaa qalabaynta iyo tababarka ciidamada marka haddii la isu geeyo safarku wuxuu ahaa safar guul ku soo dhamaaday wax badan ay uga soo hoydeen Soomaaliya waxaana xusid mudan safarkaas in aan khasnada dawladda Soomaaliya $1 aanu ka bixin oo ay ahayd mid dhamaantiis ay dawladihiina marti galiyay ay qabeen kharashka safarka